jacayl oo bari galbeed salkee baad iga xigtaa maanta waxaan baadigoob ugu jiraa waa jacaylka naftirkiisa I love qof leh ma maqli jirtay yacni waan jeclahay jacaylka naftirkiisa anaga waa Soomaali ahaanteena jacaylka aad iyo aad baan ugu takhasusay sabab jacaylku waxa uu qabaa waa micno iyo magac anaga Soomaali ahaan waxaan ku takhasusnay waa magaca laakiin micnihiisa maba uusan naga dhaadhicin laba qof maanta waxaad arkaysaa sileeda markaad aragto labadan qof jacaylkooda mid ka dambeeyo maba uusan jirin yacni sida ay isugu calaacalayaan ay inantuna waa ugu calaacalayso sana jooga muuqiyo socodka iyo laafiyaha ilaahay sameeyay qurux ku siyaadshay oo inankuna sanqaroorkaagan dheer iyo bishimahaagan tufaax iyo sunyahaagan qorqoranaya qoortaadan dheer markii aan saa u eegaba waan salalaa يعني وعلى الكشي قدام وما طبعا إلى فيوز أي إسكو هايان كل أفكار سيدا أي نافي وقفة قد شراه دواي فضلتها لكن سي النية مركي أي طحي يبدأ إنه يقف سيد بينها إلى في أي أتراه لأبسل أنت لغما يعرف إنه يدعده وأي أفكار بين وأوشي يكره لكن سي نية بين مرنبا مشي يكرته قف حدا الكيسا مركي أتقف كانت أتقطه markii uu qofkaasi uu ka fog yahay mar leema aragtid qofkaas hadii aan arki lahaa ilaafiyo waan ku jeclahay oo armeyga uu sheegan lahaa isbaranaysa markii qofka aad timaadina yaani eray aad tiraahdo iska daaya hadalkii oo dhan aad soo waday oo ka lumayba oo qofkaas markii aad joogtid eray kale ugu xijin kartid oo tarab waad cabsanaysaa oo adigoo dhanba waxa ku saaran sida cabsi in qofkani hadii aad eray tiraahdo nafta aad ka baxaysa in lagu dhaxay oo kaleeto soo qofka sida niyad aad u jeceshahay waa qofkaas aad ka cabsanaysid in aad tiraahdo I love you maxaa yeelay jacaylka dhabta marnaba afka sida uu ku soo maro way adag tahay yani culays saayida baa fuulay qofkan laakiin qofka aan jecelayn maalinta waxa laga yaabaa 9 mar inaad tiraahdo I love you hadala macaan yani waxa isleedahay qofkan soo jeedo waa waqti lumis marka aniga malak ahaanteeda galabta yani jacaylkii baan badifooso waxay samaahan kulay jacayl ma hayana ma dhihi karo oo kulay niyadeydu ba og waxa ku jira ilaahayna waa uu og laakiin qof kale tamaan shay karo balse aniga malak ahaanteeda jacaylka naftirkiisa waan jeclahay waa sababta aan maanta difoosada aan ugu ahay marka aqrad marm weydo awga calool nugul